السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومركلة إيو مقال كلو عصب يعشر كلو عصب ولي وحن كود جرنا برشدا حرفها لغة الطليانية كارهان حرفها قار مركا أي راعان شغلة قار عشر كان كيكو رأي سيدي تمنات أما بشي سيدي تمنك بشي عن سوق عادني وحن كسو برني حرف كشي أمعاء أفكسو أماليك ما نستو حن قادني نوصلا يدي ولكن سكلا للترا جي marka waa xarafka gaar ah Soomaaliga soona doorshe dhawaqa jilicsan markay tahay allora hadii aan nala socotay fahantayna casharkan kii ka horeeyay kana waa ka sii fudud yahay oo wadadii la maraya laakiin dhawaqa ku kala duwan yihiin kaas waa wuxuu ahaa sha ayaa looga hadlayay laakiin hadda kan waxa looga hadlayaa g waa xarafka gaar ah afka Talyaaniga ama dhawaqa waxay noqonaysaa g marka G لوجي E أو معناه ده حتى جاء لابد ده E ودوق واسمه يعني إحنا نقول إسا جينوكيو جينوكيو أفكار سومالي ممكن نقول يا جيلكا أفكار سومالي ممكن نقول يا جيلكا مركا أنا هذا أري أهان وما برنا إنه وحن فرنا إن وجانا أما بقى برنا جاء لوجي E دوق أي سمعنا يسمحوا مرة بقى مركا وحى أود بدن أو مرة بقى أنا لقاعدة يا حرف كا شبناها راعة أوكي سؤالك واحد جوبوتو وهي نقول إسا جاكيت جرافة وحيوان كجري كدير جري كدير حراني دي جري مية مركة قال عم نقول جري دبيرة قال سكوفو جيني شو جوستو صح مركة أريدان وحنا أصلا كلام مركة وحيد هاي وجاء أو راعة إي قاب كلو دواقايو أو أي تهاي جي أي الله دواقايو marka tan waa isla fahanay soono doorshe soono waa dhawaq doorshe macaan ama jilicsan isla ayadii ku guda jirnaa markii hore waxay ahayd i hadda sameesh waxay isku bedeshay dhawaq waa isbedelaya waxay noqonaysaa j ayaa loogu dhawaaqaya daay hadii loogu dhawaaqayo i hadii loogu dhawaaqayo hadda waxa loogu dhawaaqayo marka waxay tahay g più e oo macnaheedu tahay ga loo geeyay إقوى وعلى وحلا معنا تاي جيلاتو وجيلاتو ده لونه أنت بدل كبدها أو بدل كذا النقطة لكن أنت بدل أيقا جيلاتو ده نعمنا جيميلي ومعناه اللي هو هي أفكار سومالية متانة لغة الطليانية جيميلي مركز لغدوها أما بقى منقشة معناه له هي تاي متانة وعروش يعني علوشة هذا مركز وضحها جنت وعدد جنت وعدد أريك الله معناها أنا وجدي كرا لكن هذا ما دنينينو جيسو باركتان جيستدا جيسو وجيستدا marka muhiimadu waxay tahay inaan ogaano ga raacday macnaheedu sidee loogu dhawaaqayaa j marka waxaan halkaas ku soo baranay la letra g soono doorshe sidaas si la mid ah sida aad casharka hore uga barateen haddana hoos waxaan ugu taagaynaa isla ayadii xarafkii gaada ahaa soono duro oo markaas noqonaya g fahantay g ayay noqonaysaa oo kii hore ka adiyaasan ku dhaafnay marka casharka hore ka hartay marka maxay tahay g più a uguale gatto marka mar walba waxa maamulka iska leh xarafka shaqalka ee raaca kan waa shaqal kan waa shaqal kana waa shaqal marka hadda si loogu dhawaaqay haday tahan aadaya dhawaqa yeelanayso hadii igu yahan iida yeelanayso haday tahana eeda yeelanayso marka waxay tahay g loo geeyay macnaheedu tusaale waxa loo soo qaatay gatto afka Soomaaliga wuxuu noqonayaa lahjada Soomaaliga way badan tahay qaar dadka qaar waxay yaqaanaan bisad yaayur mukulaal nyaaw adi qolaba lahjada aad ku hadashaba dabcan waxaan u maleynayaa inaad fahantay gatto nyaaw way noqon kartaa dadka qaar u yaqaan Soomaalida wadanka federal oo qaatay waa iska kaftan lahjadu waa inuu isku taxgiriyaa gatto waxay noqon kartaa nyaaw bisad mukulaal yaanyur way jirtaa g loo geeyo oo waxay la macno tahay goorna macnaha maahan tusaale loo soo qaatay oo waxay tahay oo waxay ka mid tahay xarfaha shaqalka waa shan soma a e i o u marka xarafkii raaca ayaa mar walba awood iska leh goorna ayaa nidi g loo geeyo u waxaa loo soo qaadan karaa tusaale loo soo qaatay guanti
afka Soomaaliga erey يعني loo yaqaano oo hadda aan xusuusto ma jirto oo aan ka ahayn inaan sharaxaad ka bixiyo hase ahaatee dadka Yurub ku nool way og yihiin ama way garanayaan guanti waa يعني waxa inta badan markuu qabowga jiro la gashto si qabowga mataqaan ayay looga gaashaanto amaba ayadoo waxa jirta plastic ah oo tusaale taroo kala hadda waa aragtaan waa guanti waa gacmo gashi laakiin waxa loo isticmaalaa dhaqitaanka iyo nadaafadda haddana ayagoo isla guantiga ah ayaa jira kuwa loo isticmaalayo caafimaadka aan dhihine barafka laga gashto marka guanti waxaan u maleynayaa inaan isla fahnay waxaa jirta marka haddana ga oo ay raacday la oo labadoodaasba waxay ka tirsan yihiin yani bahda shibanaha laakiin ay raac oo kasii dambeeyo xaraf markaasi shaqal ah tusaale waxaan usoo qaadanay English marka muhiimadu waxay tahay laba shibano oo israacday oo uu ka dambeeyo shaqal mudnaanta iska leh